muxuusal ku hayay colaadii ka dhex qaraxday Generaal Maxamed Faarax Ciidiid iyo dowladda Mareykanka miyuu guuleystay howlgalkii lagu doonayay in lagu soo qabto Generaal Ciidiid kuwaasoo ciidamada gaarka ee Mareykanka ka fuliyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waa maxay farqiga u dhaxeeya howlgalkii ciidamada Mareykanka dhawaan ku soo afduubeen madaxweynihii dalka Venezuela Nicolas Maduro iyo howlgalkii lagu doonayay qabashada Generaal Ciidiid tilaabooyin nooc u qaaday dhammaan isweydiimahaas iyo xogo kale oo ku aadan taariikhda dagaalkii Generaal Ciidiid iyo ciidamada Mareykanka ayaad warbixintan kaga bogan doontaan soo dhawaada saaxiibayaal halkani waa Hoggaan Somali TV Generaal Maxamed Faarax Ciidiid wuxuu ka mid ahaa saraakiishii sarsare dowladii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre isagoona tababar ciidan midowgii Suufiyeed dalka Ruushka si kastaba tababaradii uu soo qaatay iyo xirfadihii uu gaarka la ahaa Ciidiid waxay sare u qaadeen shakhsiyadiisii wuxuuna ugu dambeyn noqday shakhsi saameyn ku dhaxleh dowladii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Generaal Ciidiid wuxuu sanadooyin badan dowladii Soomaaliya iyo ciidankii qaranka Soomaaliyeed u hayay shaqooyin fara badan tanina waxay keentay in dowladii Soomaaliyeed iyo saraakiisha iyo xukuumaddii xilligaas uu ka helo amaan iyo sumcad bilowgii toddobaatameeyadii qarnigii aynu ka soo gudubnay wuxuu khilaaf soo kala dhexgalay Generaal Ciidiid iyo dowladii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxaana la sheegay in khilaafaadkani ka dhex qarxay Ciidiid iyo dowladii Soomaaliya ay sababtay in Ciidiid dhowr jeer uu xabsi siyaasadeed galo si kasta ahaataba markii la soo gaaray sanadii 1991 burburkii dowladii Soomaaliya wuxuu Generaal Ciidiid isu bedelay hogaamiye dagaal isagoo noqday horjoogihii ururka USC hogaamintiisii ururka USC waxaa barbar socday khilaaf kala dhexeeyay isaga iyo qaar ka mid ah xubnooyin sarsare oo u badnaa saraakiil kuwaasoo ay ka wada tirsanaayeen dowladii burburtay ee Maxamed Siyaad Barre khilaaf kadib waxaa isfara saaray Generaal Ciidiid iyo Cali Mahdi Maxamed tanoo keentay inuu dhaco dagaalo geystay khasaaro dhimasho dhaawac burbur ugu dambeyn u xubsiitay dagaal beeleed iyo qabiil waxayna tani ugu sii dartay dhacdooyinkii bilowgii hore oo u muuqday xisbi iyo murano afka ahaa laakiin gaarin gacan ka hadal si kastaba sanadii 1993 wuxuu Generaal Ciidiid wajahay awoodii ciidamada Mareykanka oo isla qarnigaas ka soo dhamaaday dagaalkii labaad adduunka kuna guuleystay balse maalmo ka hor inta uusan qarxin dagaalada ciidamada cad u hogaamiye Ciidiid ayaa waxay dileen ciidamo nabad ilaalin ahaa oo qaramada midowga soo dirtay Soomaaliya tanoo Mareykanka caro ku sii abuurtay waxay keentay inuu magaalada Muqdisho ka dhaco dagaal aan waxba isku reeban ciidamada Rangerska Mareykanka ayaa magaalada Muqdisho isku fidiyay iyagoo ay weheliyaan diyaaradaha helicopterska militariga iyo gawaariga Shaam kuwaas oo ku xirnaa qoryo culculus si kastaba maalmo dagaalo qaraar sanadii 1993 dagaalyahanada hogaamiyihii ururka USC Generaal Maxamed Faarax Ciidiid ayaa soo riday laba diyaaradood oo qayb ka ahaa howlgallada Mareykanka kaas oo ku doonayay inuu ku soo qabto Generaal Maxamed Faarax Ciidiid tanina waxay keentay in 18 askari oo ciidamada Mareykanka ay geeriyoodaan Mareykanka oo dareemay inuu khasaaro xoog badan la kulmay soo gaaray tan dagaalkiisii Vietnam ayaa sanadii 1994 ay ciidamadiisii kala baxay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya aan u imaano sanadkan 2026 saddexdii bishan Janaayo sanadkan cusub 2026 Mareykanka ayaa ciidamo gaar u tababaran u diray dalka Venezuela si ay howlgalkan militari ugu soo qabtaan madaxweynihii dalka Venezuela Nicolas Maduro ciidamadan gaarka ah ee Mareykanka oo ku qalabeysan hubkii ugu dambeeyay casriga ah sidoo kale wata wax ka badan 100 diyaaradood militari ayaa marqura ku hubsaday Venezuela ciidamadan oo iska horimaad kooban oo aan badnayn la kulmay ayaa ugu dambeyn u daatay qasriga madaxweyne Maduro kadibna waxay gacanta ku dhigeen hogaamiyihii wadankaasi madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro farqiga u dhaxeeya howlgalkan Mareykanka Black Hawk Down ee Soomaaliya sanadii 1993 iyo howlgalka sanadkan 2026 ciidamada gaarka Mareykanka ka fuliyeen Venezuela kuna qabteen madaxweynihii dalkaas Venezuela ayaa ah in Generaal Ciidiid oo ahaa jabhad ciidan iyo hogaamiye qabiil iyo kooxihiisii oo ahaa kuwa daacad u ahaa oo aan dhinacooda laga soo mari karin si ay u fududeeyaan qabashadiisa ku dhex jirka qabiilkiisii iyo kooxdiisii waxay ka dhigtay mid amnigiisa adag iyo midda kale oo ah in Ciidiid gacanta lagu dhigi waayo ayaa ah in ciidamadiisii ay daacad ay ka tahay dagaalka ciidamada Mareykanka arrimahan oo isbiirsada ayaa Mareykanka ka dhigtay mid qoos muujiya halka madaxweyne Maduro sida ay qabaan falanqeeyaasha iyo baariyaasha xogaha qarsoon ay tilmaameen in qabashada Maduro ay sabab u ahayd dad u dhashay dalkaasi kuwaas oo xogo la wadaagay oo la shaqeeyay hay'adaha sirdoon ee Mareykanka taasoo ka dhigtay Maduro mid ammaankiisa jilcan yahay sida ay qabaan falanqeeyaasha